السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة جنرال كقصة أونلاين. ما أنت برنامج كيني قصوين كوحن كسر قادنا هنا قصة على حلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معلم مالمها كمدا أيا ويلي أبيه ويمادين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر مركو أركي وحيري ما أنت وحان أركي وحيابله ولي ما أركين نين ويلكي ساسان أو إجهاي. markaasuu ninkii yiri Umar oo ma ogtahay wiilkani inay hooyadiisa dhashay ayadoo meed ah waa qiso aad iyo aad u cajiib badan. Umar wuxuu yiri iga sheekee sidee u dhashay ayadoo meed ah. Wuxuu yiri ninkii wiilkan asigoo caloosha hooyadii ku jira ayaa safar isoo galay waxaana u sheegay hooyadiisa inaan safar aadayo. Markaas ay igu tiri halkeen uga tagaysaa anigoo xaamil ah oo dhali raba. Wuxuu yiri markaan albaabka ka bixi rabay ayaa waxaan caloosheeda gacanteeda saaray oo aan dhahay Ilaahow adigaan kugu amaanaystay cunugayga. Intaasi kadib ayaan safarka u baxay. Intii uu safarka ku maqnaa waxaa geeriyootay xaaskiisa ayadoo aan wali dhalin. Wuxuu yiri markaan soo laabtay ayaan imid gurigii oo xiran. kadib ayaa dariskii ii sheegeen inay xaaskaygii dhimatay waxayna ii keeneen casho. Anigoo cashada cunaya ayaa waxaan arkay qiiq meel ka baxayo. Kolkaasi ayaan dadkii weydiiyay waxayna ii sheegeen inuu qiiqaasi yahay qabriga xaaskayga. Ayagoona waliba ii sheegay maalintii la aasay ilaa iminka inuu qiiqaasi ka socdo qabrigeeda. Wuxuu yiri والله إن dadka ugu aqoon badanahay inay ahayd qof taqiyad ah saalixad ah soon badan wixii xunna reebta wixii sanad dadka farta. Kolkaasi ayaan dadkii ku yiri soo baxa oo iraaca aan soo arkay way soo raaceen. Markaan qabriga tagnay waxa aan ku bilownay inaan qodno. Markii aan qodnay mise waxaan aragnay xaaskaygii oo meed ah oo fadhisa iyo wiilkaygii oo ag fadhiya. wuxuuna yiri kadib ayaan maqlay cod ilaah kii amaanada Ilaahay u dhibtayow qaado amaanadaada. Culimadu waxay dhaheen haduu dhihi lahaa Ilaahow adigaan kugu amaanaystay cunugayga iyo xaaskayga ayadoo nool ayuu ugu imaan lahaa laakiin qadarta Allah ayay ahayd inuu sidaas dhihin oo waqtigeeda ayaa intaa ku ekaa. dulucda sheekada waxay tahay mar walba inaad ku kalsoonaato Allah subhanahu wa ta'ala oo aad tala saarato. waxaa halkaas noo eeg barnaamijkeeni maanta. hadday taa markaa kugu horeysay fadlan nagu soo biir si aad nala janqaado insha Allah.